tacsiideyn lahaa ama yaqaanay si dhowna ula shaqeeyay walaalkan Cabdifataax Cumar Xalane way hadleen ilaahay ha u naxariisto intii ku geeriyootay qaraxii 24kii bishan ka dhacay xarunta dawladda hoose markii laga reebo qofkii dhibka geystay inta kale Allah u naxariisto 21kii July ayaa isugu keen dambeysay Cabdifataax aniga oo ka imid ax control afgooye oo wado hore loo dhagax dhigay dabadeed dhismo lagu bilaabay ayaan isku aragnay anigoo jidka maraya mooto saaran wuxuu ii sheegay inuu danaynayo inaan maaragtay la shaqeeyo markaas waxaan ku xasuustaa inuu ka wacyi gelinaya dhalinyarada hareeraha baabuurta ku dhaqda inaysan wadada wasaqeynin maadaama nadaafadda uu qaabilsanaa erayadii iigu dambeeyay markaas uu kaamirada goobjoog u sheegay annaan wakiilka ka ahaa waxaan ka xasuustaa inuu yiri 3 bilood oo fursad ayaan magaaladan ka haystaa inaan nadaafadeeda ku wanaajiyo iyadoo niyad wanaag uu ka muuqdo haddii 3daas bilood xamar aan ku dhalaalin waayana shaqadan isaga tagayaa laakiin xag alle ayaa loo qaatay waxaana geeridu ku hormartaa qof kasto ilaahay jecel yahay waxaan biirinayaa tacsida walaalkeen marxuum Cabdifataax Cumar Xalane sababta ahayd inuu wanaagsan yahayna waxaa cadeyn oo ah tirada dada ee halkan kala duwan ee aan midab iyo magac toona ugu iman aawadii iyo weynayn iyo tixgelin ay u qabaan u yimid ilaahay ha u naxariisto inta caafimaadka rabta dhaawacantayna Allah bogsiyo inagana ilaahay nama fidneeyo waa mahadsantiin